soo dhawaada saaxiibayaal waaniga Cabdijiil Cusmaan Cabdijiil Films hay'ad igala socotaan muuqaalkan waxaan kaga jawaabi doonaa qaar kamid ah su'aalihii aad iga soo weydiisteen muuqaalkii kan ka horeeyay ee la xiriiray sidee ayaan xal ugu helnaa dhibaatooyinka ama mashaakilada kala duwan ee inaga haysta Facebook ilaa iyo 6 su'aalood ayaan ka jawaabi doonaa ay suurtagal tahay adiguna in ay ciladahaasi ku haystaan isla markaan haddii aanay ku haysan aad ogaan doonta balse waxaan rabaa in aan ka dhawaajiyay in aan ka niyad jabsanahay waliba si weyn ugu niyad jabsanahay in boqolkiiba 57 asxaabtii kanaalkan soo booqday ee daawaday muuqaaladii kan ka horeeyay aanay subscribe gareynin oo aan inagu soo biirin balse boqolkiiba wax ka yar 43 ay nagu soo biireen sidaad halkan ka aragtaan saaxiibayaal 57.3 dadkii kanaalkan soo booqday ee daawaday muuqaalkii kan ka horeeyay iyo kuwii ka horeeyayba kanaalkan kuma soo biirin oo subscribe ma saarin balse waxaan idin ka codsanayaa saaxiibayaal haddii aad channelkan soo booqato waxaan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo aan wax faa'iido ah ka rajaynayn aan ka ahayn inaan xog idinku soo gudbiyo isla markaana aan ku dhisno bulsho aad u tiro badan ilaa iyo 100 dhalinyaro ayaa ila soo hadashay balse kanaalkayga dadkaasi qaarkood ma subscribe gareynin ana markaas su'aalihiina ayaan ka jawaabaa oo fariimihiina WhatsApp ayaan ka jawaabaa anigoo waqtigayga qaar kamid ah idin sii balse waxaan idin jabaa saaxiibayaal in markaas soo booqataan kanaalkan oo idinka gaar idin ah aadan subscribe gareynin oo aan shuruudihii wali buuxin la'aanahay si wada jira balse waxaan rajaynayaa saaxiibayaal in aad nagu soo biirtaan oo aad channelkan subscribe gareysaan isla markaana aad ku xidhnaataan si aan la dhiirigelin ugu helo isla markaana idin soo gudbiyo ama idin soo gaarsiiyo muuqaala gaar idin ah intaas marka laga soo tagay saaxiibayaal muuqaalkan ayaan u guda gali doonaa waxaan rabaa inaan saaxiibayaal su'aasha ugu horeysa aan ka jawaabay waxay noqon doontaa saaxiibayaal waxa loo yaqaan VPN ka oo ah muuqaalada VPN-ada ugu wanaagsan isla markaana ugu habboon ee aan adeegsan karaa haddii aad rabtaa in page-kaaga aad Soomaali ka update gareysa isla markaana aadan awoodin in qof kale dibadda uu kaaga shaqeeyo waxaad u baahan tahay in aad hesho VPN subscription ah isla markaana aad bishii lacag khidmo ah bixinayso marka qaar ka mid ah VPN-ada ugu wanaagsan saaxiibayaal ayaan idin soo xulay qaar ka mid ah asxaabtii ila soo hadashayna waan la wadaagay waxaa ka mid ah VPN-ada aan idin la soo wadaagay saaxiibayaal VPN-ka loo yaqaan Express VPN oo ah VPN lacag ah isla markaana aad kharash bixinayso bishii subscription ah dad badan ayuu anfacayaa waxyaabo badan ayuu idinka anfacayaa saaxiibayaal marka VPN-ka ugu wanaagsan ee aan idin recommend gareynaa saaxiibayaal wuxuu yahay VPN-ka loo yaqaan Express waxaa kale oo jira saaxiibayaal oo aad sidoo kale is adeegsan kartaa VPN-ka loo yaqaan NordVPN dhammaan qaybaha description video-ga ayaan idin soo dhigi doonaa saaxiibayaal NordVPN sidoo kale waa VPN aad u wanaagsan isla markaana dadkii adeegsaday ay amaaneen qaabkii uu shaqeeyay waana adeegsan kartaa adiga oo subscription ka qaadanaya waxaa kale oo adeegsan kartaa saaxiibayaal VPN-ka loo yaqaan CyberGhost oo ah VPN wanaagsan kaasi oo ku sahlaya ama ku suurtagelinaya in uu ku qariyo IP address-kaaga isla markaana uu ku siiyo IP address ama aad doorato wadan aadan ahayn wadanka aad ku nooshahay marka haddii aad rabto saaxiibayaal in VPN aad adeegsato isla markaana aad adigu gacanta ku haysto kanaalkaaga markii uu xayeysiinta ku gaara waxaan kugula talinayaa in aad mid ka mid ah saddexdan VPN adeegsata isla markaana aad kula soo degto laptop-gaaga ama aad subscription ka qaadato marka saddexdaba link-yadooda saaxiibayaal qaybta hoose ayaan idin soo dhigi doonaa su'aasha labaad saaxiibayaal ee aad soo weydiisaan waxaa ka mid ah waa kuwee wadamada loo ogol yahay in Facebook-ga lacag laga sameeyo waa su'aal kale oo taagan oo dhalinyaro badan ay soo weydiiyeen marka waxaan idin dulgeyn doonaa saaxiibayaal listiga wadamada la ogol yahay in Facebook lacag laga sameeyo waxaa kale oo ay soo weydiiyeen dhalinyarada luuqadaha la ogol yahay in lacagta laga sameeyo dunidan Facebook marka ayagana saaxiibayaal waan idin dulgeyn doonaa haddii uu barhaali ka noqdo waxaan ku hormariyaa wadamada ayaan ku hormariyaa saaxiibayaal la ogol yahay in lacagta laga sameeyo Facebook waa wadamo list dheer waaye balse halkan ayaan idin soo dhigi doonaa saaxiibayaal waad arki kartaan Argentina Australia Austria Bangladesh Belgium Bolivia Brazil Canada Chile Colombia Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt liisku dheera France baa ku jirta Germany baa ku jirta saaxiibayaal Hong Kong India baa ku jirta Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Japan Jordan Malaysia Mexico Morocco New Zealand Norway Peru Poland
Puerto Rico, Romania, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, the Netherlands, Philippines, Turkey, Saudi Arabia, Ukraine, United Emirates, United Kingdom, and United States. listigan saaxiibayaal hoosna waan dhigi doonaa description balse waa listiga loo ogol yahay in Facebook lacag laga sameeyo haddii aadan ku nooleen wadamada halkan waxa ay ka dhigan tahay saaxiibayaal in aadan Facebook lacag ka sameyn karin ilaa iyo inta aad qof kale uu dhiibay Facebookaaga ama aad ka adeegsanayso VPN ama aad ka adeegsanayso waxa loo yaqaan server waxa kale oo jira saaxiibayaal luqada la ogol yahay language marka countryada marka laga soo tago luqada baa jira hadda muuqaalka hore saaxiibayaal waxaan uga hadlay in Facebook aan u aqoonsaneyn luqada Soomaaliga balse ay jiraan luqado uu ogol yahay isla markaana ugu wanaagsan oo adeegsan karta luqadana saaxiibayaal sida halkan ka aragtaan description kan aad ka arki doontaan markaan idin soo dhiga waa kuwa hoos ku xusan oo Carabiga ugu horeeya Bengali Dutch, English, France, Germany, ma fahanteen Hebrew, Hindi, Italian, Indonesia, Japanese, Canada, Malay iyo luqado badan listiga ayaan hoos idin soo dhigi doonaa saaxiibayaal Portuguese baa ku jira Romania, Russia, Spanish, Sweden, Tamil, Turkish, Ukraine, Urdun and Vietnamese dhammaan luqadahan saaxiibayaal aad aragtaan halkan ku qoran inta markaan description aan idin soo dhigi doono waa luqadaha kaliya ee Facebook aqoonsan yahay haddii subtitle-ka aadan off iska dhihin aad ku soo geliso aadan wax caqabad kala kulmay laakiin luqadahan waxa ka soo hara saaxiibayaal script wuxuu akhrinayaa Facebook wax loo yaqaan description-ka waxaana aad halis ugu jirtaa Facebook-gaaga in aadan weligaa xayisiin ku taaban oo aadan xayisiin helin isla markaana xayisiinta uu kala laabto Facebook haddii uu luqada akhriyo marka saaxiibayaal jawaabihiina la xiriir dhinaca luqada iyo dhinaca wadanka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal in aan idinkaga jawaabay waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad ay ii soo diraan dhalinyarada waxa ay tahay saaxiibayaal team professional maxaa xalkooda ah haddii aad adeegsato professional dashboard professional mode aad adeegsato marka aadan page lahayn oo aad professional mode xayisiin ku haysato aad bay u adag tahay saaxiibayaal in aad qof kale ku wareejiso because professionalka waa profile-kaaga waa shakhsiga haddii aad profile-kaaga shakhsiga lacag ka sameynayso way adag tahay in aad qof kale ku wareejiso oo qof kale gacanta ku dhigayso oo la xiriirta inaad u baahan tahay in ehelkaaga iyo asxaabtaada aad kula xiriirto marka waa nasiib darro saaxiibayaal dadka professional moodka haysta halka kaliya ay haystaan waxaa waaye oo aan kula talinayo in ay adeegsadaan VPN-ka marka ugu horeysa ay xayisiin helaan xayisiinta usoo dhacdo haddii aad professional haysata halka kaliya aad haysata saaxiibayaal waa waxa loo yaqaana VPN in aad adeegsata isla markaana aad sidaasi muuqaalada kusoo gelisa janaalkaaga amaba aad kireysata waxa loo yaqaana server aad adeegsata serverkaasina aad kasoo dhexgasha aad kasoo kiciso Facebook-gaaga isla markaana aad sidaasi muuqaala ugu adeegsata AWS ayaa ugu wanaagsan server la kireysta isagaasi ayaad kasoo kacsan kartaa aad Facebook ku isticmaal marka haddii page-ka aad qof kale u dhiibi lahayd profile-kaaga qof kale uma dhiibi kartid marka way adag tahay in profile-kaaga professional mood-ka asxaabtii isoo weydiiyay aad qof kale u dhiibtaa marka waxaan kugula talinayaa haddii aad professional mood lacag ka sameysa oo aadan page lahayn professional mood-kaaga in aad u adeegsato waxa loo yaqaana VPN-ka haddii aad isleedahay waa maxay professional mood muuqaal aan ka sameeyay ayaa jira description ayaan soo dhigi doonaa balse waa in adiga oo aadan page lahayn profile-kaaga aad professional mood u bedesho isla markaana aad lacag ka sameyso sidee ayaan u sameeyaa marka aad soo gasho Facebook waan idin tusi doonaa saaxiibayaal for free of charge marka aad soo gasho Facebook-gaaga sida aad aragtaan hadda Facebook-gayga waxaad ku dhufanaysaa halkan oo ah saddexda these three dots baad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxaad arkaysaa meesha ay ku qoran tahay turn professional mode off aniga iminka on ayuu yahay laakiin adiga waxa laga yaabaa inuu off ku yahay haddii off ku yahay saaxiibayaal on ayaad ka dhiganaysaa sidaas ayaad ugu maarmaysaa in aad Facebook page sameysa professional mood-kaaga aad ehelkaaga asxaabtaada kula xiriirta ayaadna lacag ka sameynaysaa oo aad xayisiin ku xiranaysaa marka aad soo gasho Facebook-gaaga aad ku jirto gudaha saan halkan aad joogta baa saddexdaas dhibcood ku dhufanaysaa halkan waxaad ka raadisaa meesha aad story view as such profile status archive-ka story archive-ka activity-da hoostooda waxaad ka arki doontaa saaxiibayaal waxa loo yaqaana professional mode haddii uusan ku soo saarin waxa laga yaabaa mar uun inuu ku soo saaro haddii aad haysatana turn on ayaad leedahay isla markaana waxaad kaga maarmaysaa page adigoona lacag ka sameynaya profile-kaaga caadiga ah marka turn on professional mode turn off professional mode halkaas ayaad ka arki doontaa haddii aadan fahansaneen muuqaal kale oo aan ka sameeyay ayaa jira waa daawan doontaa isna insha Allah duwaalid walaal kale ayaa waxa uu soo weydiiyay Cabdijaliilow sidee ayaan ku ogaan karaa in page-kaygu
statuskiisa ay xun tahay ama at risk aan ku jiro isla markaana recommendationka uu ii fiican yahay sababtoo ah wuxuu dhahay dhammaan muuqaalada aan soo geliyay dad fiican ma gaaran page-keygana korriimo wanaagsan ma sameynaya marka aad soo gasho Facebook page-kaaga waxaan idin tusinayaa saaxiibayaal marka statuska Facebook-kaaga xaaladiisa caafimaadkiisa iyo inaad risk ku jirto iyo recommendationka waxaad ka ogaan kartaa marka aad soo kacayso Facebook page-kaaga aad ku jirto waxaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal meeshan ay ku qoran tahay professional dashboard ayaad ku dhufanaysaa kadib hoos ayaad u soconaysaa waxaad ku dhufanaysaa page recommendation saaxiibayaal meesha ay ku qoran tahay page recommendation marka aad ku dhufata waxa ku soo baxay halkan oo aan joogno page recommendation halkan waxaad ka ogaanaysaa in page-kaaga muuqaaladaada iyo waxa aad soo gelisa dadka loo sii gudbinayo oo recommendation loogu sameeyo haddii halkan ay ka xiran tahay Facebook-kaaga cidna ma gaaray muuqaalada soo dhigta halkii 100% dadku u gaarsiin lahaa 10% ay dadka gaarsiin 90 kana dadku ka qaranaya sababtoo ah violation ayaad ku sameysay statuskan saaxiibayaal waa halkan oo page statuska oo ah xaaladda page-kaaga uu ku sugan yahay oo ah halkan waxa laga yaabaa in riski ay ku sugan tahay oo page-kaaga riski ayuu ku jiraa maxaa xal ah saaxiibayaal in wax kasta oo riski ah aad u aragta violation ah aad ka saarta page-kaaga maxaa kamid ah saaxiibayaal qarax ayaa kamid ah waxaa kamid ah dhiig ayaa kamid ah waxaa kamid ah daawooyin ayaa kamid ah waxaa kamid ah saaxiibayaal dagaalo ayaa kamid ah wax kasta oo ciidamo la xiriira ayaa kamid ah saaxiibayaal marka haddii dhammaan arrimahaas Facebook-kaaga aad kaga hadashay ama ay ku jiraan muuqaalo la xiriira ana hadda saad aragtaan saaxiibayaal wuxuu leeyahay page has no issue page-kaaga wax dhibaato ma qaba isla markaana calaamadaas wuxuu tusinayaa green-ka ah marka haddii statuska page-kaaga uu xun yahay account statuskaas wuxuu ku soo qoranayaa page at risk waxaana halis ugu jirtaa in Facebook-kaaga hawada laga saaro anytime marka meel kale ayaan ku tusin doonaa oo aad ka eegi doonto waxyaabaha lagu haysta isla markaana aad ka delete gareyn karta marka saaxiibayaal waxaad sameyn kartaa haddii page-kaaga dad badan ay ku jiraan mararka qaarkood halkan wuxuu kuu soo dhigayaa page-ka dadkii ku jiray qofkii muuqaalka soo geliya ayuu ku tusinaya oo ah habal iyo habal ayaa muuqaal noocaas soo share gari ayuu ku dhahayaa bil habal haddii aad muuqaal ka saartay waxa kale oo aad sameyn kartaa saaxiibayaal qofkii waxa soo share gari ayaad ka saari kartaa Facebook page-ka isla markaana marka aad abiil qaadanayso waxa aad ku qori kartaa abiilkaaga in aad ganaaxday qofkii muuqaalkaasi soo dhigay page-ka isla markaana aad page-ka ka saartay because waa arkayaan iyaga saaxiibayaal anu sidaas ayaan hadda ka hor ku xaliyay cilad Facebook page-kan iga haysatay markastoo status at risk aad ku jirto ama recommendation aanu page dad u sameynaynin waxaad u baahan tahay qofkii muuqaalkaas soo share garay haddii aad 5 qof 6 qof page ku haysaan in qofkaasi laga qaado adminka ama laga saaro hoos loo dejiyo isla markaana Facebook abiil looga qaado in qofkii aad ka saarteen page-ka isla markaana aad idinku page-ka iminka gacanta ku haysaan halkaasna aad raacfaan fiican ka qaataan waxaad sameyn kartaa saaxiibayaal waxaad ka eegi kartaa waxyaabaha lagu haysto oo recent marka aad halkan ku dhufato qaybtan help support ayaad ku dhufanaysaa kadib halkan aad ku qoran tahay saaxiibayaal support inbox-ka waxa aad ka arki kartaa qaar kamid ah ciladii ugu dambeeyay ku haysto for example hadda yar alert oo ah alertkii ugu dambeeyay hadda oo halkan haddii wax cilad ugu haysto wax copyright wax dagaalo wax dhiig wax dhibaatooyin hadda lagu haysta halkan ayaad saaxiibayaal ay ku soo baxeen oo ah yar alert haddii xayisiintaada lagu haysta page-kaaga lagu haysta wax dhibaato ah waad arki kartaa hope saaxiibayaal intaasi aan kaga jawaabay qaar kamid ah su'aalihii aad soo weydiiseen muuqaalkii ka horeeyay markii aad soo daawateen waxaan isku dayaa saaxiibayaal in aan idin soo gudbiyo muuqaalo badan oo la xiriira baraha bulshada iyo guud ahaan internetka haddii aad intaan soo gaarto saaxiib waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan like saarta comment noo reebta isla markaana saaxiibayaal aad nagu soo biirto oo aad subscribe gareyso muuqaalkan dhalinyarada ayaan ugu talagalay kanaalkan waqti badan ayaan gelin doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina iyo cabashooyinkiina idinkuna saaxiibayaal waxaad ku taageeri kartaan kanaalkan inaad ka mid noqotaan oo aad ku soo biirtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh noo soo reeb fariin haddii aad qabto wax su'aalaha oo la xiriira arrimahan